هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصوماليات ملكستو أتشوكتين وان إذي السلامي وحان هلكن كلا هدليا رقي دمرك الصوماليات إدالين يرضا قوان كستو أمد كستو مالكو دون وحيلات هاي دقان يو دبيعادو أمد الصوماليات يعني هذا بيدي شيء كيا بيارك نمط هذا وحندي شيء كيا الصوماليدو كمان كون هرس أكار وحيدهن حديد وده دقي وحار وده دقي الصوماليدو بين ما شكته لكن بعد كمان مهما هذا مرة بتنرير كأنه إنه ذين السناد مرة بتنرير كأنه وقت بدن إنه السناد مرة بتين إن حريرك ريركين يو ريركاغا أما odaygaga ama xaaskaaga inuu waqti badan wanaagsanaado ma rabtin qof walba waa wiilow hooyada iyo xaaskaaga salaan iyo kalkacal ha isugu yimaadaan iyo inay hadiyad isku keenaan 20 minutes ka badan inay iswaraystaan ama 30 minutes ka badan ha ka ogolaan si kastood u tabar yartayna ilaahay halkaas u aado oo ilmaha idinka dhasheen korsada minid gabadhaas ilmaheeda maamada loo keeno hawl baa bilaabatay dhib iyo hadal baa ku bilaabanaya gabadhoy sidoo kale hooyada guriga soo dhex fariisasan inuuba alla ku badan mooyaan ama islaam weyn oo ilmo dhaldhashay ataan ogeey minid ay hooyada guriga soo dhex fariisaso daldalool bay arki waxbay arki way hadli darba waa la isku dhici maalinta dambana murankii baa sii kordhay laakiin hooyadaana haddaad halkay joogto adag ugu tagtood ku respecte garayso waxaad u awoodadna kugu geyso adiga odaygaaguna hooyadaa salaan iyo sharaf ugu tago iyo asagoo wuxuu wada oo intaa lagu kala joogo waxa weeyaan waxaa laga yaabaa 20, 30, 40 years ceeb la'aan in lagu kala joogo labadaa reerna labada dhinacba way badbaadayaan ceebtoonuna way kala asturmaysaa hadalkaa marka aan idin leeyahay waa very important arrinta kale oon rabo inaan idiin sheegaa jirto arrinta kaan rabo inaan idiin sheego waxa weeyaan qof walba qofka kale waalidkiisa respecte gare waalidkiisana xushmee qofka aad jeceshahay asna waalidkiisa waa jecel yahay labada dhinacba waalidka hal respecte gare hana loo naxariisto laakiin inay badana ido ku qasabta ma ogi dadku haddii hooyada iyo aabbaha caruurtooda koraan sidaan haddana aniga ahay oo kaleeto hadday hooyaday timaado iyo hadduu hooyadiis timaado toona waxa dhiba malaha oo annagii baa dad gagaboobay wixii saan u xalina waa garanaynaa laakiin dadku markay yaryar yihiin ayagiiba labadoodaba si fiican isku baraninoo ilmo koris iyo hawlna kusoo furantay buuq haddii dhinacyada looga soo shigo oo labada dhinac qofba mid loo jiisto reerkaa waa burburahaya dhexdana caruurtii baa ka baxaysa saqiirka ahayd faamilada burburo inta ugu badan oo burburiya ama waa faamiliga gabadha ama faamiliga wiilka aad iyo aad waxaan idinkula dardaarmayaa reerkiina iyo caruurtiinana gacan ku haysta reerka idin dhalayna gacan ku haysta una naxariista waalidkiin waxaa tiri kartiin tara laakiin daminad aad guri isugu keento hooyo iyo gabadhi ood qabto ama hooyo iyo wiilka ku qaba hadal iyo ceeb baa bilaabanaysa waa wax la soo ogaaday xidid wada degay waxaar wada degay waa Soomaali way jirtaa dad ay u shaqaysa sida Hindida iyo Bakistaaniyiinta annaga laakiin nooma shaqaynayso midda kale aan rabo inaan kala hadlo qof walba qofka kale haddaadan reerkiisa dhex gelin maba iskaranaysaan ba ceeb la'aan
ceeb la-aan waa la dhargaa reerka qofka kale ha dhexgelin dantaada aqoonso xool baa idiin taalla reerahani waa soo korsadan ilmahooda idinka caruur baa idiin taalla iyo reer dhaqis reerkiina labadiina waa fokas garaaye qof walbana waxaad ogaataa qofkan inuu adiga ku rabo uu adiga ku guursaday una reerkiina guursan ee qofku guursaday uu adiga yahay markaa gabdhaha soomaaliyeedo innagaa u badan intaynu hooyada soo kaxaysanaynu guriga soo dhex fariisanaa markaasaan intaa islaana ilmaad dhaldhalaysaa kuu kaalmayso ceeb iyo ceebaada naga raacda islaamaha waa yeelka ana shaqaha u dirsanin ilma noo hayana hadheenina ilmihiina korsada wada caafimaad qabtaan qof caafimaad qabaa ilmihii alla siiyey siduu korsado ma waayahaye hooyadin ilmana yahay hadhihina hawshiinana ha ku soo furinina reerkiina iyo baddiinana ha soo dhexgelinina hooyooyinku reerahooda waa soo dhaqdeen wixii xaq bay leeyihiin wixii lagu caawin karo oo lagu tari karo iyo sida xaqooda loogu gudi karo loogu gudo waxaana la nabadgelin laakiin minad ilmaha iga reebtid ilmaha iga caacada aada gorto dhaminad ceebtay aday isku dhacdin aday waalidka shaqadiisa maahan inay ilmahaaga koriyaan ayagu shaqadooda way soo qabsadeen ilmahooda waa soo korsadeen yadiis adiga iyo labadiina isqabta ilmahana inaa korsatiin ma garat haddaad laakiin ilmihiina waalidka hadba ku korturtaan ad ku cariiridaan ad ku dhibtaan ceebtiina iyo hadalkiina waa imaanaya inay idin soo dhex galaan ad burburtiinna waa dhici kartaa waxaan idiin sheegayaa labada qof oo isqabtaay waalidkiin iyo hooyooyinkiin iyo aabayaalkiin inay badan idinku qabta ma ogi halkooda ugu taga kusoo salaama halka aad degantihiinna qofna ha isugu imaanina barayfad ha idiin ahaato ceebtiina saasay ku kala asturmaysaa qof walbowna wiilkuna reerkooda asaga inuu la dhiilgarayo ku qurux badan tahay ood gabadha un xushmad iyo salaan isugu timaada gabadhuna reerkooda inay iyadu la dhiilgarayso oo xushmad iyo salaan un wiilka la isugu yimaado ayay mudan tahay haddii uu dhib dhacood haddii kaleetaba waalidka mar walba ha lasoo salaamo hana layska ilaaliyo gabar baan guursaday oo waalidkeed iyo reerkooda shuqul kuma lihi oo lama xiriirayo ma soo salaamayo ma soconayso waayo waqti waxaa imaanaysa aad u baahan tahay faamiliga geeri iyo jiro iyo wax kastaa imaan karo xiriiri reerka aad raggow gabadha ka guursataan wanaajiya oo xiriiriye gabadha nafteeday salaanta waalidka salaan xushmee weliba haddaad u awoodana gifti iyo wax wanaagsan oge laakiin yaan lays dhexgelin oo halka gabadha iyo wiilka aad isku qabteen oo ilmaha ku korsanayseen waalidkan inay soo dhex fariistaan waa laga qurxunyay haddii xidid wada degay waa xaar wada degay haddii lays arko layska soo hortoosana bini aadmigo dhan ba hadduu iska soo hortooso isnaca oo daldalool qofka kale ceebtiisa arka laakiin banaanka inta la kala joogo qof walba ceebtiisa waa asturaya ceebtiina asturta waalidiinta ceebtiina ka asturta reerihiina dhaqda qof walba hooyadii aday ku dhashay qolkaayo meeshaa yaree degantaad carruurta ku korsanaysay isku day inaadan dhex kelin hooyo meesheeda ku wanaajisid iyo aababa ood ku dhaqaalaysid maxay hadduu ilaahay ka dhigo maxay arrinkaa waa arrin very important ha isdhex degina ha isku dhex lalabanina kala xishooda dadka xududkahow xudud qof reer waliba hala yeesho xad iyo xudud reerka gabadha dhalayo wiilkaan idinma qabee gabadhaanu qabaayo xushmad baa kala mudantihiin xushmadeena aqoonsada reerka wiilka dhalayowna gabadhaan idinkuma qabtiini wiilkaanaa qabee wiilkaanay guursatay idinkeedan ma guursane hala nabadgelin salaamu calaykum waalidkana hala sharfo waalidkana hala xasuusno oo yaan la jaran qaraaba goys waa ilaah goys wasalaamu calaykum waraxmatullahi